ciidamada ilaalada kacaanka Iiraan ayaa xalay ilaa gelinkii hore ee maanta qaaday mawjadaha 57 ilaa 60 ee howlgalka lagu magacaabo ballanqaadka afraad ee dhabta ah. weeraradan oo isugu jiray gantalaha balastiga gaar ahaan madfaca Khaybar la yiraahdo iyo diyaaradaha droniska ah ayaa raadkiisu gaaray bartamaha Israel. waxaana la soo tabiyay in madaafiicda iyo dronisku ku dhaceen xarumo military, kuwo isgaarsiineed iyo saldhigyada nidaamyada difaaca Israel lafahaantooda. mid naadir ah ayaa ahayd in weerarkan yimid kadib sheegashooyinkii Donald Trump ee ahayd inay burburiyeen nidaamyadii madaafiicda Iiraan. Trump ayaa xalay mar kale ku celiyay inay guud ahaan meesha ka baxday awoodii ciidanka Jamhuuriyadda Islaamiga ah, si gaar ah ay burburiyeen 95% nidaamyada madaafiicda balastiga ah iyo droniska. waxa uu ku dooday inay xitaa beegsadeen warshadaha samaynta madaafiicda dalkaas. ha yeeshee daqiiqado kama dambeyn markii Iiraan qaaday qayb ahaan mawjadaha madaafiicda ah ee ay ku beegsatay Israel, Ciraaq, Qatar ilaa Imaaraadka. tallaabadaas oo sida muuqata ay kaga jawaabeen sheegashada madaxweynaha Mareykanka. dhinaca kale waxaa maalmahan soo xoogeysatay xeelada ay isticmaalayaan madaxda Mareykanku oo hadafkeedu yahay in hoos loogu dhigo sicirka suuqyada shidaalka adduunka, kuwa oo iyagoo adeegsanaya farsamada la yiraahdo price manipulation, sheegaya hadallo xaqiiqada ka fog balse kaalmeynaya inuu hoos u dhaco qiimaha xawliga ku kordhaya ee suuqyada shidaalka adduunka. xeeladani waxa ay ku salaysan tahay in la sheego hadallo tilmaamaya in loo dhawaanayo wada hadallo lagu soo afjarayo dagaalka Iiraan, ama in Washington sheegto in la joogo xilligii Mareykanka iyo Israel joojin lahaayeen dagaalka. hadalladaas oo isla markaaba saameeyay suuqyada shidaalka, balse Iiraan oo docdeeda ka taxadaraysa xogahan ay beenta ku tilmaantay. arrintan quseeye ee ka imanaya madaxda Mareykanka ayaa iyaguna joogteeyay beeninta macluumaadyadan. xalay wasiirka arrimaha dibadda Iiraan Abbas Araghchi oo qiray jiritaanka arrintan ayaa isagoo ka jawaabaya xiriir la sheegay in wakiilka aqalka cad Steve Witkoff isaga la sameeyay ku jawaabay. xiriirkaygii ugu dambeeyay ee mudane Witkoff waxa uu ahaa isla muddadii kan uu u shaqeeyaa oo uu Trump ula jeedo uu go'aansaday inuu geedi socodkii diblomaasiyadda kaga takhaluso dagaal kale oo sharci darro ah ciidan oo ka dhana Iiraan. sheegasho kasta oo khilaafsan damacooda guracan ee duulaanka Iiraan waa been iyo marin habaabin ay doonayaan inay ku sameeyaan ganacsatada shidaalka iyo indhaha caalamka. tani waxa ay tustay in Donald Trump iyo jaalashiisu haatan diiradda saarayaan qaboojinta suuqyada shidaalka ee u cakiran xirnaanshaha gacanka Hormuz, maadaama aysan xal u hayn furitaanka gacankana waxa ay ku khasbanaadeen xeelad kasta oo ugu yaraan saacado kooban hoos u dhigi karta sicirka shidaalka. uma se muuqato tallaabo meelgal ah marka laga yimaado inay soo dhaweyn karto in Iiraan inta wada hadal loogu yeero la aqbalo shuruudaheeda dagaalkana la joojiyo, midaas oo ah halka Iiraaniyiintu doonayaan inay ku dhamaato qadiyadda dagaalka dalkan ka dhanka ah. dhinaca gudaha Mareykanka, qadiyad kale ka daran qiimaha shidaalka iyo guul-la'aanta dagaalka Iiraan waa lacagta tirobeelka ah ee aqalka cad ku kharash gareynayo dagaalkan. agaasimaha guddiga dhaqaalaha qaran ee aqalka cad Kevin Hassett ayaa telefishinka CBS u sheegay in ilaa haatan Mareykanku ku kharash gareeyay dagaalkan lacag dhan 12 bilyan oo dollar. inkastoo falanqeeyayaashu ay doorasayaan in lacagta Mareykanka dagaalka uga baxday laba jibaar ka badnaan karto tirada uu Kevin sheegay, haddana xadigan lafahaantiisa ayaa ah mid aan la aqbali karin marka gudaha Mareykanka la joogo. waxaana xoogeysanaya baaqyada ka imanaya cashuur bixiyayaasha iyo golayaasha baarlamaanka waddanka oo soo jeedinaya inaan sii socoshada dagaalkani sinaba libin ugu soo hoyayn Mareykanka. Donald Trump ayaa lagu diray inuu ku jiro marxalad jahwareer oo la xiriirta sii wadida dagaalka. waxaa si cad u diiday codsiyadiisii gurmada ee dib u furidda gacanka Hormuz guud ahaan wadamadii uu baaqyadan u jeediyay. midowga Yurub oo ugu dambeeyay ayaa aqalka cad u sheegay inaysan diyaar u ahayn inay khatar nolosha dadkooda u geliyaan furitaanka Hormuz, taas oo sida falanqeeyayaashu ay doorasayaan soo dhaweyn karta dib uga fakeridda sii wadida dagaalka oo haatan sida cad aysan muuqan guul ay dagaalkan ka guntaan dhinacyada gulufkan bilaabay.